wax walba waxay ku bilowdeen sidii dareenku ahaa oo ahayd in magaalada xeebta badweynta Hindiya ku taal Garaacda laga hirgeliyay deked. taasi maalin bay ahayd. maanta halkan waxaan idinku soo gudbin doonaa sheeko kale iyo in la joogo xilligii si rasmi ah loo furi lahaa wajiga koobaad ee dekeda Garaacda. dekedan horta waa deked casri ah oo loo qaabeeyay ama markii horeba loo naqshadeeyay inay noqoto dekadahan loo yaqaan container ports ama containerada ay ka soo degaan. waxay ka kooban tahay 4 jambi oo ay maraakiibtu ku soo xirtaan. 4 jambi oo ay dekedu lahayd hadda 2 kamid waa dhamaat dhismahoodii. waa la isticmaali karaa, maraakiib ku soo xiran karaa, waana ku soo xirteen oo ilaa hadda markabkii shanaad oo ayada alaab wada ku soo xirtay. taagboodna hadda waa taagan yahay, waa aragtay. waxaan hadda ku sugannahay xarunta shirkadda wadaagsan ee gacanta ku haysa dhismaha dekeda ayaan aadaynaa si aan u soo aragno halka ay wax marayaan, iyadoo la filayo dhawaan in xariga laga jiro qaybaha la diyaariyay ee wajiga koobaad. dhaqaalihii la isu keenaa dhidbaa u mooday war dowlada dhumucda wayn lay wax dheeriin taariikhda lagu dhigaya dhambaaldaba adduunka dhaygag jooge ma ku dhabaa adduunka dhaygag jooge ma ku dhabaa. Oktoobar 2022 oo maalmo la tiriyay naga xigaan ayaa loo mudeeyay waqtiga dhabaradayga isku dayada wada jirka ah iyo isku tashiga uu mir dhali lahaa maraakiib iyo doonyo ganacsi ay halkan ku soo xiran lahaayeen, sida uu sheegay maareeyaha shirkadda wadaagsan Saciid Cabdulqaadir Faadi. labadan hadda jambi oo dhamaaday shaqadooda waa lagu sii bilaabayaa shaqada oo dekedu tartiib iskaga sii furmaysaa. waxaan rabnaa in la sii manaafacadsado labadan jambi. marka qorshuhu hadda wuxuu yahay bisha Oktoobar oo in ku soo aadan oo hadda ayna ka xigto bishan aan ku jirnay bisha dambe oo September in xariga laga jaro labadaas. wajiga koobaad ayaa la diyaariyay jambiyada A iyo B. Injineer Ismaaciil Cabduqaadir Cali oo ka tirsan shirkadda wadaagsan haynoo sharxo jambiyada diyaarsan iyo tanka ay yihiin maraakiibta iyo doonyaha ku soo xiran kara. labada jambiyo hadda noo diyaarsan saa soo aragtayba waa diyaarsan yihiin in insha Allah lagu shaqeysto bay diyaar u yihiin. jambi waa 150 mitir, jambiga labaadna waa 120 mitir. labada jambi mid baa wuxuu leeyahay qayb rooro ah. rooro waa meesha maraakiibtu intay gadaal ku furtaan xoolaha looga dareeriyo, hadday gaari wadaanna laga soo dareeriyo insha Allah. labada jambi ilaa maraakiib gaaraysa tankooda u gaaray 10,000 tan baan ugu talagalnay inay kusoo xirtaan oo si isticmaalaan si caadi u isticmaalaan. markab 10,000 tan ah iyo wixii ka hooseeya isticmaali kara, doonyaha isticmaali kara. maraakiibtaas oo noocyada kala duwan ama kuwa general kaagada ha ahaadaan ama kuwa containerka wada ha ahaadaan, intaba waan ugu talagalnay. haddii lahayn waxaa kaloo isticmaali kara maraakiibtan dhexe oo kuwan waxyaalaha liquidka sida naaftada iyo waxa la midka keena, kuwaasna waa isticmaali karaan oo waa loogu talagalay. marka saa aragtay labada jambi waa diyaarsan yihiin. waxyaalihii muhiimka u ahaa inay shaqeeyaanna oo dhinaca marka la fiiriyo waxa la yiraahdo mooring accessories-ka sida meelaha marka kusoo tirsanayo bahaladan raabarada kusoo tirsanayo rukumadii oo ilaa 100 tan ah rukumada aragtay oo ku geesahayo markabka xarga loogu xiro. ringiyada sidayska oo markabka markuu soo xirto lagu gigtirayo, marka uu meesha laga sii daynayana qayb inta loo furo qaybta kale ay sidays ahaanka loo isticmaalo. jaranjarooyinkii dhammaan waa u dhammaystiran yihiin. qaybaha kale oo hadda la xiriiro oo shaqada ka socotana hadda waa aragtay. shirkadda wadaagsan ayaa xafiisyo iyo xarumo ku meel gaar ah ka samaysatay gudaha dekeda, iyadoo dhawaana la filayo in dowladda ay ka dhisato dhulka loo qorsheeyay xarumaha dowladda.
hadda waa ujeedaan yani waxaa laga soo baxay dhinacii badda maadaama birigana shaqo looga baahanayo. Marka birigii hadda waxaa laga sameeyey 2 baakin oo waaweyn oo loogu talagalay in alaabta lasii dhigto intaan la raran, ama container ha ahaato ama alaabtan balkiga ha ahaato. 2 baakin shaqa weli ku socota, laakiin bisha August bay soo gabagaboobayaan oo 2 baakin oo 40 iyo 2,000 oo kilomitir square ah, 42,000 meter square weeye, 40 iyo 2,000 oo meter square weeye badkooda. waxaa kaloo mar dhow la dhisayaa maaragtay warehouse-yadii ama bakhaarradii waaweynaa oo hadda mid u horreeyay aan rajeynayna inuu asnaana soo gaaro dhowaan, oo bahaladan la isku xiro ah. isagana meeshiisi baa loo diyaarinayaa oo bahaladan la isku xiro markii uu timaadana wax yar buu qaadanaya in la isku xiro oo la diyaariyo. marka waxaa kaloo iyadana qorshaysan in xafiisyadii dowladda iyo kuwii maaragtay shirkadda laftigeeda la sameeyo. inkastoo aan hadda aan haysano xafiisyo nagu filan oo kusoo shaqaysan karno, isna waxaan rabnaa gaar ahaan qolyaha dowladda in xafiisyadoodii iyo howlahoodii la diyaariyo. wadahadal baa noo socda iyo qorshe. marka waxaan rabnaa ayaga laftigeeda in si degdega loo diyaariyo xafiisyadii ay dowladdu ku shaqayn lahayd iyo xataa kuwii kambaniga oo meel dekada agteeda laga dhiso. laakiin hadda waa haysanaa xafiisyo nagu filan oo aan si ku meel gaara shaqada lagu sii bilaabo. dhismaha jambiyada ca iyo da oo loogu talagalay konteenarada ayaa sii socon doona iyadoo si rasmi ah dhismaha guud ee dekada loo soo gabagabeyn doono bilowga sanadka 2024. labada jambi oo kale oo harsan marka hore jambiyada intaan la dhisan waxaa la sameeyay waxa la yiraahdo rockfill ama reclamation oo waxa la buuxiyaa badda la buuxiyaa. marka midna buuxintii baddu waa dhamaatay, midna waxa weeye kala barbay marasaa. marka waxaan oran karnaa ayagana boqolkiiba shaqadii 40 waa dhamaatay. inta ka harsan oo ah in kan inta u dhiman oo badda buuxinteeda la dhameystiro iyo in jambigii laftigiisa shubkii lagu dhiso baa haray. iyadana haddii alla idmo sanadkaana waa soconaysaa shaqadiisu. sanad soo soco oo soo socdo 2023 waa soconaysaa haddii alla idmo. waxaan rajeynaynaa marka bilowga sanadka 2024 in gebi ahaanba shaqadii dekadu ay soo gabagabowdo. sidoo kale dhismaha wadada Garaacad ilaa Galdogob ayaa la sahamiyay, waxaana la sii saarayaa jay inta loo heliyo qorshaha laamiga lagu saarayo oo dowladda ay dadaal ugu jirto. waa wado 300 oo kilomitir. wadadaas hadda waxaa dhamaaday sahankeedii. final reportkii waa shirkadii sahanka samaysay ay soo saartay. iyadiiba hadda waxaa la wadaa in la approve gareeyo oo wasaaradda howlaha guud ee Puntland iyo hay'adda wadooyinka iyo shirkadda wadaagsan oo maalgelisay la soo bandhigo final review validation workshop waxa la yiraahdo oo midka ugu dambeeya la qabto oo hadda bishaan la qabanayo. marka kadibna riboodadii si rasmi ah lagu wareejiyo dowladda Puntland iyo hay'adda iyo shirkadda fangareysay wadaagsan. riboodadaas marka la sameeyo options badan baa inoo yaal oo dekada wadadaas lagu dhisayo. qaybanade waxa weeye sidii wada laami ah oo highway weyn looga baalkeen lahaa oo waxyaalo badan ka bilowsan yihiin. meelo badan la gargaraacay dowladda Puntland iyo shirkaduba ay meelo badan Puntland ugu jira priority hay'adaha maartay waxaan leeyahay wadooyinka priority ugu jira oo mudnaanta koowaad u leeyahay ku jirto oo haddii in case la helo wadamada ama hay'adaha caalamiga ah ee Soomaaliya ka taageera maalgelinta ama dhismaha wadooyinka iyo guud ahaan kaabayaasha dhaqaalaha inay priority gasho. taa laftigeeda inaanan anaga shirkad ahaan waxaa naga go-aana inaanan sugin barnaamijyadaas waqti ka dheer qaata ee hadda shaqo laga qabto. marka shirkadda wadaagsan waxay soo gaday qalab isku xiran oo isugu jira iskarogooyin, booyado, cagafyadii oo dhoocyo kala duwan, graders, bulldozer, excavator, waxaan leeyahay wheel loader. waxaas oo dhan baa la soo gaday oo hadda halkan yaal. marka hadda qorshihii waxa socda sidii shaqada loo bilaabi lahaa oo wado jay ah
ama gravel road waxaan la yidhaahdo oo ilaa iyo Garaacad ilaa iyo Turdibi isku xirta oo baabuurka weyn iyo baabuurka yarba si fudud u mari karaan in la sameeyo inta la helayo wado laami ah. Farxaan Faarax Cabdi ayaa sheekooyinka iyo muuqaalada la gaarsiiyo bulshada ka soo bandhiga dekada waxa uu sharaxayaa dadka dekada booqanaya iyo sida ay dareemaan marka ay arkaan halkii wax laga soo bilaabay iyo meesha la marayo. dadku badankood markay goobtan yimaadaan waxay sheegaan inay filan waa ku tahay ama qaadansho waa waxa laga yaabaa dadku inay muuqaalo iyo ka daawadaan laakiin qofku markuu u yimaado iyo markuu muuqaal ka daawanayo laba kala tahay marka gudaheeda timaadid wixii aan muuqaal ka daawanayso wax ka weyn baa arkaysaa marka dad badan ba emotional kuwa waxa aragnay xitaa salaatu shukri tukanaya dekada dhexdeeda ku tukanayo ilaahay wada ma hadda askari leh marka farxad bay dareemaan iyo maaragtay hididiilo hor leh bay dareemaan markay yimaadaan meeshaan. gobolka Mudug ee ku yaala bartamaha Soomaaliya xad dhuleedkan la leh dalka Itoobiya waxa la saadaalinayaa in dekedana u bedeli karto marin ganacsi oo ballaaran taasina waa dhacdo kale oo sare u qaadaysa muhiimadda uu gobolku u leeyahay dalka mar horeba ficilada la arkay iibsiga dhulalka daafurka mashaariicda ganacsi iyo bulshada deegaanada xeebaha ku yaala deegaamaysanaysa waa tilmaam kale oo laga tusaale qaadanayo halka uu gobolku u socdo.